wargeyska The Standard ayaa wuxuu maanta qoraaya in cudurka COVID-19 isbedel weyn ayuu ku keenay maratay guryaha waagii hore raggu aad iyo aad ba yani ceeb bay ahayd ama lama filaan bay ahayd qofka markuu horta shaqada soo tagaayo intaas oo sana ayaa waxa lagu ogaan jiray qofka briefcase ugu wata oo ninkii hebel shaqadu aaday oo briefcase-kii ayaa hadana waxa bedelay laptop ma aragtay waa very serious code laakiin gabdhaha waxa laga yaabaa dhowr hal bag oo ma aragtay baaga kale ku dhex jiro iyo adduun ba ugu jira wixii makeup ka ahaa yani intaas oo ma aragtay qolal ayuu leeyahay code marka marmar xitaa chipsiga iyo ma aragtay kukuda meeshaas un ba ma aragtay adin cuntada lagu qaataa laga yaabo raggiba hadda waxay leeyahay war ani waan xisaabtamay maalin walba shaqada markaan joogay COVID-19 ka hor 300 400 ayaan ku qadeyn jiray laakiin hadda waan xisaabtamay ilan markaan xaafadda joogo qarashaadka weeriyihiin marka aniguna dhawaanahan ma aragtay bariiskayga iyo hilibkayga intaan si fiican u soo duuduubto qadadii waxa weeye waxaan xaafadan ka qaataa halkii maqaada marka COVID-19 wuxuu keenay xisaab war irsaaqada anoo guriga ka soo wada qaata way ku fiican tahay bedelkii waxa weeye gurigiina tuu laga sameyn lahaa aniguna aan anoo shaqadii goobta shaqada joogo marka dadka intooda badan waxay leeyihiin waa loo siman yahay oo lunch time markii la gaaro waagii hore makhaayad maba jirtay meelihii dhan way xireen qof walba ma aragtay baagiisa wax unbu kala soo baxaya oo ma aragtay aad marka dhaqaale badan baa ku baaqday arintaas aad iyo aad waa sidoo kale haddii aan dhinac kale fiirino waxaa lagu sugan yahay ama waxaa lagu sugnaan doonaa magaalada Kisii marka headline-ka ayaa wuxuu dhigayaa forgotten greats featured as Kisii hosts big day yani dadkii ma aragtay haliyaaga ahaa oo qaar la iska iloobay ayaa maanta waxaa lagu xusi doonaa ma aragtay Kisii wargeyska horta waxa weeyaan wuxuu soo qaatay Kisii waxay ku taalaa galbeedka Kenya marka galbeedka Kenya dadkii haliyaaga ahaa sida haliyada ahaa Soomaaliga waa culisay muuntahay oo waxa kamid ah Martin Shikuku Jaramogi Oginga Odinga Raila Abihis ayaa kamid ah Masinde Muliro nin magac dheer ku ma aragtay qowmiyada Abaluyada George Moseti Anyona oo isagana Kisii oo haatan ka hor ma aragtay ololtama madaxweynenimada dalkan Achieng Oneko nin isagana ma aragtay jelway ah oo gobonimadoonka dalkan qayb weyn ka soo qaatay Simeon Nyachae Helen Obiri waa gabar ma aragtay orodkay aad ugu dheeraysa oo wacdaray dhigtaa ma aragtay markii masaafada dhaadheer la iskugu imaado ayada iyo gabdhahan Etoobiyaanka marka Kisii ayaa la iskugu imaanaya subaxan waxaa jira ku tiri kuteen oo tolo ku xigeenka madaxweynaha miyuu ka qayb qaadan doona hadduu ka qayb qaato protocolkii caadiga la ogaan jiray oo ah ku xigeenka madaxweynaha in uu soo dhaweeyo madaxweynaha sidoo kale waxaa jira ma aragtay wargeyska sidoo dhigaayo tolo maanta miyay fursadaas u adeegsan doonaan madaxweynaha dalka iyo saaxiibkiisa siyaasadeed Raila Odinga in ay shaaciyaan taariikhda iyo meesha kor ku qoran Raila iyo Uhuru iyo Ruto taariikhda iyo meesha lagu shaacin doono warbixintii ugu dambeysay oo BBI-da dadka qaar baa waxay leeyihiin ma ay anshaxumay noqon doonta maalin qaran inay u adeegsadaan maalin siyaasadeed marka waxyaabo badan ayaa la isku haystaa oo ku saabsan tolow Kisii maanta waxa ka dhici doono iyo qofka ma aragtay meesha khudbadda jeedin doono BBI-da ma la soo hadal qaadi doona waxaa la fiirinaya khudbadihii hore uu madaxweynaha bixiyay dhowr jeer ayuu BBI-da ku soo hadal qaaday sidoo kale ma aragtay in dastuurka dalka wax laga bedeli doono ama ma aragtay afti la qaban doono ugu dambeyntii haddii aan fiirino wargeyska ayaa wuxuu ka hadlayaa BBI-da waxay noqon doontaa geedi socodka BBI-da waa midkii uu Raila Odinga si fiican siyaasadda ugu soo laaban lahaa magaciisa iyo ma aragtay libaaxnimadiisa ama waa tii baabi'in lahayd haddii taasna ay dhacdo waxaa meesha ka cadcadaan doona oo ma aragtay cirka isku shareeri doona ku xigeenka madaxweynaha haddii lacalla aqsi uu noqdona waxaa meesha dhulka la simi doona ku xigeenka madaxweynaha Abdi marka aan si kooban arinta BBI shalayto ninkii Ruto waan maqlaynay hadalkiisa oo isagoo waliba Mount Kenya iyo dhulkii madaxweynaha ku sugan waa wuxuu lahaa ilaa haday doonaan may Raila wiilkiisa ka dhigaan Raila walaalkii ma ka dhigaan IBC ma dhiban guddiga doorashooyinka arinta BBI wali waxaad moodaa waa isla daba wareegaya wax
si cadna dadka Kenyaanka xog badan ugama hayaan laakiin Fred Matiang'i oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka maanta xaafadiisii baa lala tagay xuska maalinta halyeeyada waa ninka dad badan iyo orkan cadaadisku u xoogan inuu William Ruto ku hayo xitaa shaqooyinkiisii buu hayaa dad badan ay leeyihiin waa madaxweyne ku-xigeenka qarsoon in la soo dooranin la leeyahay sidoo kale tan ah madaxa golaha wasiirada halka marka aan fiirino ma muuqataa inay sumcad siyaasadeed oo weyn reekisi iyo Fred Matiang'i u tahay maxay tahay sababta madaxweynuhu ninkan Matiang'i ah oo cirka agtiis u geynayo oo waxa weey dadkii oo dhan uga salamariyay ma horta Matiang'i sababta ugu weyn waxa weeyaan he's a performer waa nin maaragtay aad iyo aad u shaqo badan waa nin wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada isbedel weyn ku keenay waa nin maaragtay xanaanka dhan oo imtixaanaadka dalkan qishkii iyo waxaalihii dhan ka baabi'iyay waa nin no nonsense ah waa nin maanta aan loo raacan karin ma qoslo ma jahan waa nin maanta aan loo raacan karin waxaas iyo waxaas ayuu xaday waxaas iyo waxaas ayaa lagu tuhmay way jirtaa maaragtay waxaan la sheegay warwara kalaan laakiin ilaa hadartan wax cadeymo marka waa nin laga yaaba in maanta hadii laga dhigo compromise candidate ama qofkii maaragtay war kuwan kale way socon weeyaane ninkan aan maaragtay musharax ka dhigano waxay u badan tahay waa nin laga gadi karo shacabka Kenyaanka waa sidii aaminsan yihiin ayagu aad marka laga yaabo isagu inuu boos kale ku soo baxo wallahi de kulay horta horta yani arinta maaragtay ku saabsan in feestooyinka qaranka lagu qabto maaragtay maamul goboleedyada waa mid aad yani waxa weeyaan Nyeri bay ka dhacday maalin dhoweed waxaan u maleynayaa dhowr meelood ayay ka dhacday marka in Kisii la geeyo waa okay waa caadi xitaa Garis laga yaabaa in maalin la geyn doono Wajeer in la geyn doono way dhici kartaa marka ma aha yani Kisii waxaa loo geeyay okay siyaasad ahaan waxaa loo fasiri karaa Matiang'i waa meeshan ka soo jeeday bal horta meejaas aan geyno ninkan qancino niman madax adag baa ka soo jeeda meeshaas waayahay laakiin Northeastern hadii la geeyo waxa weeye waa galay iyo Malkamir iyo Gaarsigubay baa la soo xusuusanayaa reeno Northeastern arintaas aad soo dhaweyn maayo waayahay daawadayaal barnaamijkii intaas ayaan ku soo gabagabeynay